بسم الله الرحمن الرحيم سيداد أركيستين ما أنت هالكن رئيس وزراء الصومالي مدن حسن علي خيره وحكود ده فري برنامج آدي مهمة وسارد الجناعسية نهير جلسي لكن طبعا ونقع وبنجي دونكو والله حديرة سيدي هرمارين وين ولا جو سميه registration ka ama diiwaangelinta kambaniyada iyo sida ay ku helayaan sharciyada ay ku shaqaysanayaan shaqabka ay ku helayaan ayaa la hormariyay oo laga dhigay qaab digital ah oo online ah oo qofka doonaya inuu shati company furto ama cusboonaysiisto uu si sahal ah isagoo jooga xafiiskiisa Soomaaliya iyo adduunka oo dhan uu codsan karo in shirkadda loo furo waqti koobanna hadduu buuxiyo shuruudaha kabaniga lagu furanayo magaca uu la baxaya uu noqdo magacaan hore loo qaadan si sahla oo daqiiqado kooban ah ayuu sharciyadii ku shaqaysan lahaa ku helaya oo xafiiskiisa ku daabacanaya sidoo kale ganacsi kasta waxa loo sameeyaa wax la dhaho business ID oo ah liisankii sharciyada numberka sharciyadiisa ganacsi oo isagu uu leeyahay account uu isagu leeyahay oo ku bixiyo cashuurta oo wixii uu wanaagaha sameeyo uu geliyo oo creditka company-giisa qof kasta uu ka heli karo ayaa ku sameeynaa kalo kaaga hambalyeynaya shaqada wasaaradda ka haysid adiga iyo dadka kula shaqeeya aniga inaad daruufo adag ku shaqaysaan laakiin hadafkiinu inuu yahay in meeshii aan joognay oo gud qorka ahayd ilays looga guuro waa idin hambaleynayaa wada shaqaynta wanaagsan oo aad la leedihiin ganacsatada Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay inay lafdhabarta u yihiin horumarka dalka wax badanna dalkan u soo qabtay in badan aan u mahadcelin laakiin aan aaminsanahay in wada shaqayntiinu ay horumarka dalka wax ka tari doonto hadafka ugu weyn ee dawladdeenu ay leedahay waxa ay tahay sideeba dadkeenuna dawladda u aaminaan duniduna dawladnimada Soomaaliyeed u aamintaan si taas ay u dhacdo waa inaan leenahay nidaam dhaqaale oo hufan nidaamkaasi waxa uu ka bilowdaa horta in dawladda wax lagu aamini karo ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay dawladda ku aamintay in la og yahay meesha la geenayo sidaas daraaddeed ayaa laga rabaa in aan aqbalno intaanan dunida kale u gudbin horta oo aanan cid kale gurigeeda ugu tagin oo aanan la hadlin inaan gurigeena marka hore nadiifino dhisidda hay'adaha dhaqaalaha marka waxay ka bilowdaa dhisidda dawladnimada dhexdeeda waxaan aad ugu faraxsanahay marka in hadda aad maraysaan mashruuc ay ugu muhiimsanaa oo ahaa sahlidda ama fududeynta ganacsiga oo aan isleeyahay wax weyn ay ka tari doontaa hamiga weyn aan ka qabno dawladnimada waxaan aad ugu faraxsanahay in wasaaradihii qaabilsanaa arrimaha dhaqaalaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kulligood ay ka soo baxaan howlahoodii oo hadda dawladda Soomaaliyeed ay hiigsanayso in muddo dhow aan soo gaarno talaabadii ugu horeysay ee deyn cafiska macnaheedu ay tahay marka bangiga adduunka ee hadda lacagta adduunka ee dawladda Soomaaliyeed u furato waxa ganacsatada Soomaaliyeed u furmaya hay'adihii horumarinta dhaqaalaha oo maalgashiga Soomaaliya ku sameyn lahaa oo albaabadeedu ay uga xirnaayeen shuruudihii hor yaallay oo dawladda Soomaaliyeed ay ka soo baxday shuruudahaas waxa ugu waaweynaa inaan annagu isku filnaano in waxana soo gala aan kharash garayno inaanan deyn gudaha iyo dibadda aanan gelin in waxana soo gala meesha aan geeyna la og yahay in lacagta bacda lagu qaadi jiray lagu bedelo warqado shaqeynaya
in isla xisaabtan uu jiro waa garan karaa in weli aanan dadka Soomaaliyeed oo dhan gaarsiin shaqada socota laakiin tusaalaha ugu fudud waxay tahay maalintaan nimid ilaa hadda dawladda ciidayna kula ma jirto markaan nimid $100 milyan lagu lahaa dawladihii naga horeeyay kuwaasoo ah mushaar la bixin waayay ama cid qandaraas la siiyay oo lacagteeda la siin waayay kuwaasoo ahaa wax aan loo maamulin sida loogu talagalay shuruudda ugu horeysa ee nidaamka maaliyadda dawladnimada si dunida ay noo aqbasho waxa ay tahay inaad og tahay in dukaan marka aad tagto aad wax ku iibsan karto kaliya wax aad haysato